مسؤولينta sarsare ay ka socda ururka Alpha Trust oo ah urur fadhigiisu yahay dalka Ingiriiska isla markaasna urur dhaqdhaqaaqa arrimaha bini'aadanimada iyo gargaarka dadka jilicsan loo fidinayo ayaa waxa maanta magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay agaasimaha guud ee xafiiska samafalka ee madaxtooyada saraakiil sarsare oo ka socda madaxtooyada waxaana ujeedada safarkooda mas'uuliyiintani daarana sidii ay qayb lixaad looga qaadan lahaayeen taakulada iyo gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu ay saameynta xoogan ku yeesheen waxaana ugu horeyn halkaasi hadallo kooban oo soo dhaweyn ka soo jeedisay agaasimaha guud ee xafiiska samafalka ee madaxtooyada Aamina Maxamuud Diiriye saaka waxaan joognaa Hargeysa Cigaal International Airport oo aan ku soo dhaweynayno wafdi nooga yimid dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London oo hogaaminayo Daahir Cali Kulmiye oo ah gudoomiyaha Alpha Trust iyo agaasimaha guud Cabdisalaan waxaan halkan ugu nimid si aan u soo dhaweyno oo ku soo dhaweyno dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland caasimada gaar ahaan Hargeysa aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa dalkiinii hooyo maadaama aad tihiin dad Soomaaliyeed oo soo gurmaday inay walaalahooda abaaruhu tabaaleeyeen ay gargaar soo gaarsiiyaan aad iyo sumig weyn leh ayaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan baan idinku soo dhaweynaynaa waxaan idin leenahay soo dhawaada marka ugu horeysa mar labaadka Ilaahay waxaan idinka baryayaa hawsha aad u socotaan ee ah hawsha samafalka dadka abaaruhu naafeeyeen inaad wax ka tartaan aad meel fog uga timaadeen aad u soo damqateen marka TV-yada ka aragteen dadkiinii oo tabaalaysan inaad gargaartaan Ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro intaasoo jidka dheer soo marteena Ilaahay waxaan ka baryaynaa in Ilaahay ajarkeeda uu idin siiyo dhinaca kale waxa iyaguna halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay gudoomiyaha ururka Alpha Trust Daahir Cali Kulmiye iyo agaasimaha guud ee ururkaasi Cabdisalaan Muumin oo sheegay inay ku faraxsan yihiin soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay sheegana inay qayb ka yihiin gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen dawladda Soomaaliland waa maalin barakaysan wax lagu farxo waaye anagoo soo dhaweyn aad iyo aad noo soo dhaweeyay Aamina Maxamuud Diiriye madaxa samafalka madaxtooyada iyo Maxamuud Cabdiraxmaan Maxamuud madaxa madaxtooyada Soomaaliland bartakoolka madaxweynaha waxaan leenahay sida ay noo soo dhaweeyeen aad iyo aad bay ay noo qancisay waa ka abaal celinaynaa anaga ku hadlay ururka Alpha Trust waa urur u taagan agoonta iyo maatada waxa uu ka asaasan yahay wadanka UK magaalada London Africa meel walba ayaan ka howlgalnaa waxa aad iyo aad maanta aan markinay inoo soo jiidatay warbaahinta dhibaatada ay ka soo daayeen abaaraha ama dhibaatada ka jirta walaalaheena dhibaataysan anaga waxaan nahay hay'ad caawinta dadka dhibaataysan waxaan halkan u nimid walaalaheen in aan gacan gaarsiino shaqeyno wixii awoodeyna u qabanno wax walbo maanta shuxuurteen halkan lagu soo koobi karo Alpha Trust waa urur u taagan daryeelida dadka danyarta ah waxa halkan ka helay inaan daryeelno walaalaheen meel kasta ay Soomaaliya Somaliland ay ka joogan abaaraha maanta ku dhacay Somaliland haddana uu daadadka ay saameeyeen halkan lagu soo koobi karo runtii Somaliland gacanta ay ka geysteen han ugu weynaada ha ugu horeeyo madaxwada sare Axmed Maxamuud Silaayo runtiina waa u mahad celinaa ururkan oo ah urur dhaqdhaqaaqa arrimaha bini'aadanimada ayaa inta uu magaalada Hargeysa ku sugan yihiin mas'uuliyiintan waxay booqan doonaan deegaanada abaaruhu ay saameynta xoogan ku yeesheen Najiib Cabdiwali Cabdixiis telefishinka caalamiga Universal magaalada Hargeysa